بسم الله الصلاة والسلام على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. walaalyaal maanta waxaan rabaa mowduuc aada muhiim u ah inaan ka hadlo. Riyooyin waxaa jir oo muhiim noo ah. Aniga inta badan inaan ka hadlo ma jecli, mana ka hadlo, laakiin waa muhiim markaan fikiray. Meelaha qurux badan markaan tagaaniyo soo duduuba indhaha ku doogsada. walaalyaal mowduucyada waxay tilmaamayaan matalan kasoo qaad guur ayaad ku tali jirtaa, safar ayaad ku tali jirtaa, mashruuc ayaad ku tali jirtaa sida ganacsi oo kale, mise waxyaabo waxay doonaan ahaadaan, mise waxaad ku tali jirtaa hataa kasoo qaad waxaad ku tali jirtaa arrimo kale, waxbarasho, waxyaabo badan. yacni anaga haddaan bini aadan nahay qorshooyin ayaan leenahay. qorshooyinkaas aad leedahay mararka qaar anigoo ka fikirin ayaan ku degdegnaa. xamaasad ayaana qaada, arrin ayaa rabnaa, xamaasadaa naga badinayso, khalaas maba ka fikirayno, wixii waa ku dhaqaaqaynaa. laakiin waxaa noo wanaagsan inaan digtoonoo ahaana. sidaa darteed rabbigeen subxaana wa tacaala qofku uu jecelyahay markaasoo kale riyooyin ayuu tusaya oo leeyahay waxaa ka joog. sababtani mowduucan igu soo dhashay waxay tahay daraadhow gabaraa isoo wacday. waxay ugu tiri gabar ayaa rabtay in riyo loo fasiro. marka gabadhii riyadii markii aan ogaaday waxay ahayd gabadhii riyada inay wada ay markaas ku socotay ayna sax ahayn, ay u baahantahay inay ka istiqaaraysato, mise salaad mise sadaqa ay la baxdo, mise ilaahay barido, adi wax ku dhaqaaqdo. yani arrintaa intayna galan ka hor inayna ka fikirto waxyaabo badan ay xisaabteeda samaysato. marka gabadhii markaa weydiiyey waxay tiri haa dabcan wax arrin noocaas ayaan ku tali jiray inaan sameeyo. marka waxaan jeclaystay sidaa darteeda in aniga mowduuca idinla wadaago. riyooyin haddaa ku riyootid adigana hadaf kuugu jiro, waxaa wanaagsan riyooyinka inaad dib u istaagtid, sadaqooyin la baxdid, mise aad duceysatid, mise waxaa haddaab iska dhaafi kartid baa iska daysidba. lambar 1, haddaa ku riyootid deen, riyada dhexdeed deenaa ku wareerisay. deen haddaanan xadiisi nafsi ahaan yaa walaalayaal, middaa mar walba waa inaan idinku daraa, waayo riyo iyo xadiisi nafsi labay kala tahay. yacni labaduba waa isla riyo, waa la riyoodaa, laakiin tan xulma ma ahan, yacni ru'ya ma ahan oo fasiro ma baahna, laakiin tan oo xadiisi nafsiga midda kale laakiin waa ru'ya. haddaa ku riyootid deen, caadi ahaan midteed qof deemaysan, riyada dhexdeed waa deemaysan tahay, waxaa laga yaabaa cibaadada rabbi inay yartahay, maadaama anaga ay muhiim noo tahay haddaan muslimiin nahay. cibaadat allah, yacni caabudaada rabbigeena ayaa waxa dhanba ka horeysa maaha. sidaa darteed riyadaana ka horeysiisay. haddaa ku riyootid deen adigoo ku dhibayso, waxay noqon kartaa in xagga rabbi aad wax yacni cibaadadaad wax nusqaanay tahay. hadda kahor waxaan kasoo hadlay haddaa ku riyootid hurdo inay qaflo tahay. marka maadaama mowduucaas hurdadaa hore uga soo hadlay, maloo baahna hadda inaan kusoo celiy, wax cusub inaan ka hadlaa fiican. tan hurdadana waad ka heli doontaan qanaadka insha allah. bar 2, haddaad ku riyootid adoo qarqoobay, taasna wax badan waa kasoo hadlay, laakiin hadda waa haddaa adiga hadaf kuugu jiro oo riyada dhexdeeda aad ku aragta adigoo qarqoomay. taana waxay tilmaamaysaa dhibaatooyin aad ku dhici doontid, khaasatan haddii marka adiga aad go-aankaaga inaad tijaari iyo waxyaabaha samaysid, khasaarooyin badan ayay tilmaamaysaa. haddii arrimahan kuugu jirin oo aragtid adoo qarqoomay, rubama iidan cibaado yar ay tahay. lambar 3, waxaad ku riyootay riyada dhexdeeda adigoo lagaaga digayo guur. waa guursa rabta, laakiin guurka wax lugle ma fiican, ka joog. yacni riyada dhexdeeda waa lagu neebi jibinaa, wallaahu yaclam. midaasna waxay tahay idana inuu guurka marka aad ku jirtid, caadi ahaan haddaadi guur marka aad ku fikiraysid inayna kheyr ku ahayn, wallaahu yaclam. laakiin waxaa samaynaysaa guurka yacni in laga noqdo dhaqsi degdeg loogu noqdo ma fiicno. waxaa samayn kartaa istiqaaro badanaa tukanay. haddii hal mar kuugu filnaa weyda 2 mar 3 jeer iskaga celceli, insha allah wax badan oo kheyr leh waa la kulmay. inkastoo istiqaarada ay yiraahdaan waa hal mar oo keliya, laakiin in lagaa aqbalinaa laga yaabaaba marka koowaad. niyadaadaaba jooginba, waad fikiraysa, waa isla maqneed, adi waxaa dhici kar. sidaa darteed aniga waxaan jeclahay istiqaarada ani ahaan nafteeda haddaan ka hadlo inaan ku ceshto mar 2 3 inaan iska tukado. lambar 4, haddaad ku riyootid adigoo wax cunay, haddaa lacala cunto cunaysiin hadda iska fogeeya. haddaad ku riyootid adigoo cunay waxaan wanaagsaneen sida timo,
baranbaro. subxaan allah. riyooyinka waa xanuun, weliba waa xanuunada ruuxiga u badanyihiin. sida tixri oo kale waad cunaysaa, yani akiid wax fiican maahan. riyooyinka tintoo kale, baranbaradoo kale, waxaan gadaal kasoo xasuusta insha allah idiin soo sheegi doonaa. khaasatan haddii kalarka oo markaa arkaysid waxaasaa cunaysid madow ay yihiin, waa xanuuno oo jirkaaga gaaraya. sidaa darteed marka waxaa lagaaga baahan yahay adkaar badan, inaad ilaalisid, weysadaada badnaato. liano waxaa macquula inay dad jiraan cadaabo ah oo arrimo kuu maleegayo. xanuunadana waa xanuunada ruuxiga. number 5, haddaa koryaatid kalarka huruud ah, kalarka yelowga, wax ku saabsanaa cunaysaa. matalan cuntaad cunaysaa, sida mamcaanaad cunaysaa kalarka. inkastoo mufasiriin qaar ay dhahaan iskuba xirna kalarka ma noqon karo xanuun, laakiin mufasiriinta qaarna waxay dhahaan kalarka midabka wax leh adigoo cunaa haddaa koryootid xanuunay tilmaamaysaa. laakiin maayaa xanuuno ruuxi, waa xanuuno caadi ah. rabbiyaan ka magan galnay xanuunada ruuxiyo kuwa kaleba ilaahay hanaga haayo. laakiin haddaa riyo ku aragtid, adiga waxaa samayn kartaa markaa waxaa ku dadaali kartid inaa caafimaadkaagan ilaashitid. mar walban walaalayaal sadaqada wanaagsan. maxaad amraadkeena, yani ishfu amraadkukum, waxay ahayd sadaqa bisadaqa maheno. sidaa darteed maxaad sadaqadu way wanaagsan tahay hadduu qof xanuunsiya iyo haddaan xanuun jirinba. haddaa xanuun jirin hataa masiibooyinkii xanuunada dhibaatada soo socda rabbi uu kaaga hortag gaashaan uu kaaga dhigaya insha allah biidnillaah. waa inaan niyeysanaa, horta wax walbana waa niyada. marka sadaqa lala baxaayo waxaa wanaagsan inaad niyada gelisid inay sadaqa tahay, ooda beri ka hadli doonin, oo maxaad aada ku faanaynin arrimo noocaas oo kale kugu jirin, liwajhillah aad inaad u baxsanaysid oo kale. number 6, dhiig haddaa koryootid. inkastoo culamada qaarna ay dhahayaan dhiig wuxuu tilmaama waxyaabo kaloo badan, qof walbii xaalada uu ku sugan yahay way kala duwan tahay. mararka qaar dhiig waxay dhahayaan uuruu tilmaamaya, laakiin inta badan culamada fasirka riyooyinka waxay leeyihin dhiiga waa xoolo xaaraan ah andhehe ayay yidhaahdaan. marka haddii aad tijaaro ku jirtid oo kale, sidaa mawduucan hordhaca idinku soo sheegay, oo dhiigana riyo aad ku aragtid, dib u fiiri tijaarada aad geli rabtid, qofkaa la geli rabtid, waxa aad ku ganacsan rabtid, yani dib u fiiri, laga yaabo inay wax ka qaldan yihiin. number 7, shilka gaariga. shilka gaariga yarkan weyn waxuu doona ahaada. shilka gaariga isagana arrin wanaagsan ma tilmaamayo. gaariga sidiisa waa nolosheena. marka shil gaari markaa koryootid, waxaa maanta ka hadlaya dhan waa waxa noloshaada ku saabsan. hadday tahay shaqadaada, waxbarashadaada, guurkaaga, noloshaada hadday wax ka qaldiy wax ka sax, waxay doontaa ha ahaato. haddaa adigoo gaari wadaad riyo ku aragtid, shil ayaa la gashay, sida adiga noloshaada u wadid ayaa wax badan ka qaldan. hadday noqoto caafimaadkaada, waxbarashadaada, hurdadaada, cunistaada, la dhaqankaaga dadka, waxay doontaba ahaato. number 8, xabsi. xabsi haddaa koryootid, xabsiga wuxuu ku kala duwan yahay, qof walba iyo xaalkiisa uu kala duwan yahay. matalan gabadha hadda la qabin oo kale, hadday koryoota xabsi waa wax wanaagsan, waa guur. laakiin qof iska caadi ah, mise xaasa, mise la qabo, mise nin xaaslaa, xabsi ayuu koryooday. rubama oo ciriiriyo jiraan, ciriiriyo caadi ahaan weliba markaa riyada arkaysid, caadi ahaan waxaad la nooshay ciriiriyaal, midaas way ka turjumi kartaa. wallaahu yaclam. number 9, waxaa jira riyooyin aada u badan oo hore nugu soo hadlay, haddana aan waxyar idinka taataaban doono oo digniin ah. waa soo jamcinaya. number 9 waxaa weeye guri kugu soo dumay. number 10, dabka, dab, yani guri dabka kacay oo kale. number maxay ahayd 11, mayd wax kaa qaadanayo. wallaahu yaclam. marka maxaa loo baahanyahay riyooyinkan xunxun had markaa aragtid, inaad dhinacaaga bidix aad 3 jeer u tuftid, dhinaca u jiiftid mooye dhinac kale u seexatid, aadan niyeysaninba, aadan sharaysaninba. waxaa rabbigeena ka filan walaalayaal waa helnaa. rabbigaaga kheyr ka filo insha allah riyadaa kuma saameynayso.
intuu bariye rabbi kugu tusaayo yacni hurdada riyo aad ku arkaysid waa intuu rabbi kaaga digayaba hadday shar tahayna kaaga digaayo hadday kheyr tahayna oo maxaad kuugu bishaareynay sidaa darteed marka riyada xun mar walba isma fasirto sidaa darteed adiga dad ha u sheegin dad ha laa wadaagin hana niyeysanin waxaad rabbigaa ka niyeysataa inaad kheyrkeeda la kulmaysid mar walba riyo xun aragtid waxaa wanaagsan sadaqo inaad la baxdid haddaa sadaqa markaa awoodeyna istikfaar iyo dikri iyo qur-aan badan waa la imaan kartaa waxaan jeclaystay dhammaadka videoga inaan waxyaabo wanaagsan idinku sheego matala haddaa riyaad ku aragtid meelaha cagaarka ah waa riyo wanaagsan sidoo kale haddaa roobka riyo ku aragtid waa riyo wanaagsan haddaad riyo ku aragtid quraanjado badan hadda quraanjada dad badan waxay dhahayaan ilwaay mararka qaar waxay noqon kartaa owlaad badan inuu rabbi kuuga arsaaqayo xasharaadka sidoodaba waqtiyo qaadoo ilyihiin way jiraan waa markay midabkooda madow yihiin sida baranbaradoo kale dabaqaloocoo kale il iyo xasad iyo cadaabo iyo waxyaabo lasoo darsa way noqon kartaa laakiin hadda adi aad tahay qof la nool xanuun ruuxaani riyadaa way kaaga turjumi kartaa arrimahaasaa ku hay haddii laakiin adi aad la nooleen qof caafimaad qaba aad tahay oo haddana mar walba adkaar sabax adkaar masaa akhrista yahay oo rabbi aad ku xiran tahay riyadaa quraanjada markaa aragtid waa owlaad haddaad ku riyootid cuntooyinka mamacaan waxyaabaha mamacaan waa hadal wanaagsan waa kheyr badan arsaaqad ayi nooc min al akil wax walba oo raashin ka mid ahna waa arsaaqad iyo barako badan rabbi ku siinay sidoo kale haddii aad ku riyootid waxyaabaha udgoon waa riyo fiican qofka ku riyooda qabeys haddaa ku riyootid waa idiin soo boobsina waxyaaba fiican oo wanaagsan idinka sheekeyna insha allah haddaa ku riyootid qabeys sidoo kale waa raaxata baal iyo xasilooni haddaa ku riyootid gurigoo rinjiga bedelaysid mise gurigoo nadiifinaysid sidoo kale waa arrin fiican haddii aad ku riyootid cade adigoo ilkaa cadeysanayo waa arrin aada u fiican farxad ah haddaa ku riyootid dhar cusub adigoo xiranayo dhar cusub sidoo kale haddaa ku riyootid kabo cusub waa raaxata baal qofka oo murugahaysay raaxata baal guur way tilmaamaysaa guur xalaal ah waxaa kaloo tilmaamaya haddaa ku riyootid safar oo kale safarna haddaa ku riyootid oo khaasatan aad ku safraysa safar degan oo habi ah oo meesha aad u socotid aad ku faraxsan tahay aaday u fiican tahay iyadan waa isbedel nololeed oo aada u sareysa qiimo badan leh haddaad ku riyootid ilmo yaryaroo quruxsan taasna waa bishaarooyin badan horena waa uga soo hadlay riyo kale idiin sheegi rabaa maaqaan haddaad xasuusataan janinkii hore furo qofka ku riyooda furaha wallaahi furaha yacni riyadiisa qof ku riyooda kabacdi aan farxinba ma jirto saan aniga islee qofka furo ku riyooda aniga waa arkani waa ku riyooday saraxa farxad badan ayaan iiga dambeysay markaa furaha ku riyooday furo markaa ku riyootid aad ay u fiican tahay farajay tilmaamaysaa sidoo kale qofka ku riyooda suurat alfaatixa insha allah riyada oo qur-aanka janankii hore wax badanaa kaaga soo hadlay janankan insha allah waxaa sameyn doonaa silsilad oo ku saabsan qur-aanka iyo suuradaha mise aayadaha qofka ku riyooda aayado qaar oo waxaa jirta micno gooni leh iyo suurado oo guud ahaan igana micno leh suurat alfaatixa qof ku riyooda aad ay wanaagsan tahay farajay tilmaamaysaa haddaad ku riyootid lacagta mar walba waxay tilmaamaysaa faraj iyo dhibaato maadiyan ah ka bixaysid khaasatan qofka la nool markaa dhibaato maadiyan ah marka mar walba waxay ku xisaabsan tahay lacagta say u fara badneed mar walba ay fara badan tahay koriyooshada riyadeeda kheyr badan ay tilmaamaysaa sidoo kale walaaleel haddaynan ahayn xadiisa nafs liannahu xadiisa nafsay noqon kartaa aragtada lacagta haddaa matala adi markaasoo kale xaalad culus aa ku jirtid lacag ku riyootid way noqon kartaa axaadiisa nafs sidoo kale riyada faraska wuxuu tilmaamaya gabadhaan la qabin guur dadka kale jamcan waxay tilmaamaysaa kheyr badan sidoo kale hadda koraa kasoo hadlay wax badanaa kasoo hadlay adoo iftiin inaa aragtid iftiin aada ayay u wanaagsan tahay ani caadi ahaan maadaama mugdiga necbaa iftiinka riyooyinkiis waa jeclahay iftiinka riyada aad ku arkaysid aad ay u wanaagsan tahay walaalayaal halkaasaan kusoo koobaa wixii su-aalaha insha allah qaybta komadiga igu soo qora
insha allah waxaan ku fikiraya inaan sameeyo Instagram aan ku wada sheekaysano. Haddaad ogoshihiin oo ra'yigiina okay uu yahay, insha allah waan noo sameynayaa. Weegii hal mar ayaa sidii ayaamihii Facebook aan uga sheekaysan jirnay camal aan uga sheekaysan doonaa insha allah. Waayo dad badan ayaa lambarkii soo weydiiyo, ana hal lambar oo aniga ii qaasa bisaan haystaa, sidaa darteed waan iska mashquul badanahay. Marka insha allah waxaan ku fikirayaa inaan Instagramka noo sameeyo oo halka aan ku wada sheekaysano. Muddada aan wada hadli doonana aan aniga noo soo go'aamiyo weegii hal maalin oo maxay idinkana munaasab ay idin tahay. aad ay u mahadsantihiin walaalayaal, noo sheer gareeya, asxaabtiina la wadaaga, jananka meeshiisa ka dhaqaaji. aadna u mahadsantihiin. wassalaamu calaykum.